adogtiin tacliinta aynu wadno ee waddanka ka socota gabdhaha ugu horeeya mar walba hooyaana daba taagan aaba ma daba taagna ardada kaalimaha ugu horeysa galay 40% wax ka badan waxay noqdeen gabdho gabadha kaalinta koowaad gashay jaamacadda ugu sareysa ambiye warsamo cilmi wallahi aad ba u faraxsanahay guushana horta qof walba uu gaari karaa gabar iyo wiil kuma xirno dadaalka ku xiranta sodonkeega qof keligay baa gabar ka ahaa waxa ii yeeray wiilka ninka haystay HR-ka su'aasha koowaad ii weydiiyay waxay ahayd ma dalka wax ku soo baratay mise dibadda markaas waxaan ku yiri dalka markaas uu igu yiri soo ma ogid arday waxa la tartamaysay master ah oo aad ka soo dhex baxday habaan ku yiri jaamacadda ka baxday markii igu yiri soo jaamacadii amaanaya markii la tartamo oo la oratamo waa la kala badiyaa in la kala badiyaa ay marka waa nasiib iyo qadarta ilaahay laakiin juhdina wuu ku jiraa taruumu alcizza thumma tanaamu laylan yaqusu albahra man talaba la'aali burini shaacirihi haddaad doonaysa cizi iyo sharaf waa inaad habeenno badan soo jeedo qofka lu'lu iyo jawhar qaaliya raadinaya badduu quusaa baa la yidhi isagoon adawaadkii iyo wuxuu badda ku geli lahaa xitaa haysanin buu isku daya inaad fikirta gaarto ama buurta dhakadeeda gaarto guul baa u naqaanaa inaad joogto meeshaasna oo laga qaadin waxa loo yaqaanaa hormuud baa loo yaqaanaa ama inaad horseed ahaad inaad shaqooyinka la qabto si kale u qabatid hal abuurka saas weeye war qabriga baa meesha lagu nasto adduun laguma nasto ee dhalinyaro hadhiinina waa daala kelmadda kaba saar afki